daawasho qiimaha leh ee aan ku siqo wararka warbixinada dhinaca diblomaasiyadda isla markaana aan ku bilaabay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in gaashaanbuurta NATO ay tahay inay magac bedelato kadibna ay bariga dhexe ciidankeeda ku shubto. Mr Donald Trump ayaa waxa uu soo jeediyay hindise uu sheegay inuu u jeediyay madaxa guud ee hay'adaasi ama gaashaanbuurtaasi ninka la yiraahdo ninkaas oo telefoon ku wada hadleen iyaga oo ka wada hadlay arrimo waaweyn. Janice Stoltenberg iyo madaxweyne Donald Trump ayaa waxa ay ka wada hadleen qadiyad waaweyn oo ku saabsan arrimaha bariga dhexe ka soo naasacadaaday iyadoo madaxweynaha Mareykanka hindisahan uu ku doonayay inuu ku khafiifiyo culayska ciidanka Mareykanka kol walba ka saaran bariga dhexe. Wuxuu yiri bariga dhexe waxa ay noqotay goob aan anagu ku hoobanay isla markaana si xooggan aan u baabiinay kooxda ayuu yiri ama si xooggan waqti u gelinay 70 sano ee ugu dambeeyay waxa muuqatay in gaashaanbuurta NATO ay NATO taagantahay. Haatan waxaan oran lahaa NATO ha loo bixiyo NATO ayuu yiri oo ula jeedo NATO Middle East oo ah NATO iyo bariga dhexe. wuxuu yiri waxaan ahay nin magac bixinta ku fiican waa maxay magacan bixiyay quruxdiisa ayuu yiri NATO ayuu markale barta Twitterka ku soo qoray isagoo sheegay in NATO ay noqon doonto ayuu yiri mid wanaagsan. NATO hadii loo bixiyo ayuu yiri waxay noqonaysaa in bariga dhexe oo dhan la geeyo ciidanka gaashaanbuurta NATO. waxaan u maleynayaa ayuu yiri in NATO isbalaariso waxaana ay isku ballaari kartaa ayuu yiri gobolka bariga dhexe taasoo ah wax saxan. hadda waxa ay u muuqataa ayuu yiri in meesha anaga noolooga dhaqaaqay taasina ma aha ayuu yiri cadaalad. wuxuu yiri gaashaanbuurta NATO ciidankeeda waa inay halka geysaa kadib waxaan u bixinanaa ayuu yiri NATO oo aan ula jeedo ayuu yiri intuu markii hore NATO oo gaaban iyo oo markaas Middle East oo gaaban oo isku dhajiyay ayuu markii dambe si kala gooyay kadibna wuxuu mid walba macnaheeda u define gareeyay ama macnaheeda ayuu si markaas kala qoray. wuxuuna sheegay inuu ujeedku yahay in gaashaanbuurta NATO iyo dalalka bariga dhexe ee ogol reer galbeedka la isku dhufto kadibna ciidanka gaashaanbuurta NATO halkaas la geeyo. wuxuu yiri magac bixinta waxaan aad ugu heer sareeyaa markii aan la hadlay ayuu yiri madaxa guud ama xogayaha guud ee shirkadda hay'adaasi gaashaanbuurta NATO Janice Stoltenberg aad buu ugu farxay ayuu qadiyada waxa uu yiri waa magac fiican waana ka fiirsanana ayuu yiri Mareykanka ayaa ku tooqaya madaxweynihiisu inuu bariga dhexe banaan doono hadii aan gaashaanbuurta NATO aysan la qaybsan dhibaatada. wararka aan ku noqono waa weyn Iran ayaa markii ugu horeysay waxa ay qiratay in ay soo riday si kasma la'aan